Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cashkan waa cashirkii labaatanaad ee koorsada Udacity. Cashkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee codkaada loo qasaa. Maxaan ula jeedaa codkaada inaad aad ka dhigtid midkii saxda aan ka tarjumaynin oo mid qasan oo aan la fahmin oo codkaada saxda inuu yahay inaan la fahmin. Marka sababtan saas u sameeyo waxay tahay waxaa dhici karto codkan inaa idaacad aad kasii daynayso kale radio aad kasii daynayso qofkan ammaankiisa uu baqayso. Marka codkiisa waad bedelaysaa si asan loo aqoonsan codkaas kii saxda ka tarjumaya laakiin waa codkiisa qof kii saxda ka tarjumaya sidee loogu sameeyo Audacity gudihiisa si aan taas u sameeyo maanta. Marka codkeena ayaan duubanaynaa ee la soco codkeena markaan duubanayaa bismillah. Cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee codkaada looga dhigaa mid qasan oo kii saxda aan ka tarjumaynin ee la soco codki waad duubayso bismillah. Cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee codkaada looga dhigaa mid qasan oo kii saxda aan ka tarjumaynin ee la soco si ama kuwaad u sameeyo kadib highlight ayaa hoostaada dhammaan control A ayaan leeyahay si highlight ay ugu wada saaro. kadib effectigaas ayaan tagayaa kadib waxaa kasii tagayaa distortion markaad tagto kadib waxaad tagaysaa meesha qorata manage kadib factory set kuwan dhammaan waa lagu bedeli karaa. Aniga hadda waxaan ka dooranaya oo kale kanoo kale aan ka dooranaya kuwan ka dhammaan ka dooran marka ila dhegeyso. bismillah. Cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee codkaada looga dhigaa mid qasan oo kii saxda aan ka tarjumaynin. Ma ujeediin codkaygii kii saxda ma tarjumayo. Hadda apply ku dhufto meeshan waa isbedelayso codkaaga weynaha u fiirso apply ayaa ku dhufaa. Ma ujeediin codkayga noocan ayuu noqday. bal ila dhegeyso mar labaad. bismillah. Cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee codkaada looga dhigaa mid qasan oo kii saxda aan ka tarjumaynin. Cashka intaa ku imaan doona sidaas iyo nabad.